gabadhan hadda kadib anaga inoo shaqeynaysaa ogow. barasho wanaagsan xaaji. yaa barasho lamida dhaqso way bilowday ka waran. ha ilaawin shaqada lagu keenay. marwa raali noqo. qoftoo catuuti ay keento wallaahi. naagtan waxay soo waday wabiga weyn. wuu qurux badan yahay wallaahi. magacaygu waa Sharmaake. barasho lamid ah magacayga waa Faatuush. aad u qurux badan tahay wallaahi. mahadsanid. marwadaada yeyna arkin. yaah meeshaan maxaa ka socdo? yaah sheekadan ma keente. maya marwo shaqada guriga u sheegay. wallahi wax baa jiro. shaqadan iska sii qabo waan soo laabanaya. hay marwo. xaaskii waa baxday oo way sii kontinaysaa halkan gabadha shaqaaley waxa uga baxay Janice oo ay wax walba ku qasi karto. hadda waxay ka xiriiraysaa albaabkii waxay u soo laabanaysaa xaggaasii ninkii oo ay rabtaa inay xiriir jacayl u sheegato. waxay haysay Janice oo ay uga sheegatay jacayl oo ay ku kala goys labadooda. waxay ugu tagay sariirtiisa jiifka ahayd oo halkaas ay wax walba ku qasi rabtaa. haye maxaa la sastay? xaaskii inuu wax ka dareento ma rabi. ka waran hadaa xiriir wada yeelano. oo sidee ah? xiriir jacayl. talo maxay ka damacsan tahay inaa xaslaa way aragtaa qorshe nooca ay ka damacsan kartaa yoolkooda ugu weyn waa maxay? maxaa la fikiraysaa? laakiin inaa xaslaa waad ogtahay. adoo xaslaa ayaa kuu diidina mid kala guursatid. waxba kama qabo. inaa hawadiisa ka xiraabo ma ogo. marow maadigiiba maxaa ka heesaan meeshaan? qada ayaan karin rabay cuntada noocuu jecel yahay ayaan weydiinayay. qadada soo kuma dhihin bariis ama baasta mid kari. marwo wuxuu jecel yahay ayaan karinaa. maxaa tidhi ii kari? bariis